السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دوادا channelka isha ciyaaraha kuna soo dhawaada muuqaalkan oo ku saabsan qaybtii labaad ee taariikhda kooxda Malaki Real Madrid fadlan haddii aad daawadan qaybtii hore ee muuqaalkan ku dhufa linkiga ku jira qaybta description-ka si aad u daawatid kadib dhimashadii Santiago Bernabeu waxaa muddo yar si ku meel gaadha madaxnimada kooxda u hayay Raimundo Saporta kaasoo ku dhawaaqay in doorasho la qabanayo khasnajigii kooxda oo lagu magacaabi jiray Luis de Carlos ayaa iska casilay jagadiisii si uu ugu tartamo madaxnimada kooxda maalinta kama dambaysta ah ee lagu soo gudbinayay codsiga ayaa ahayd 26 July sanadkii 1978 de Carlos wuxuu soo gudbiyay 3352 waraaqood oo uu ku muujinayo musharaxnimadiisa iyo waxa uu kooxda u qabanayo halka labadii nin ee kale ee la tartamayay oo kala ahaa Campos Gil iyo ganacsade ka ganacsan jiray ubaxyada oo lagu magacaabi jiray Josh Digweer ay labaduba ku guul daraysteen inay ku soo gudbiyaan intii ugu yareed ee laga rabay waqtigii kama dambaysta ahayd tana waxay sababtay in la joojiyo doorashadii loona doortay Luis de Carlos madaxweynaha cusub ee kooxda June 1980 garoonka Santiago Bernabeu waxa uu martigeliyay finalka Copa del Rey kaasoo u dhaxeeyay kooxda koowaad ee Real Madrid iyo Real Madrid Castilla oo ah kooxda heerka labaad ee Real taasoo la aasaasay 21 July sanadkii 1972 Castilla ayaa sanadkaasi awooday inay ka adkaato 4 kooxood oo heerka koowaad ah kuwaas oo kala ahaa Hercules, Athletic Bilbao, Real Sociedad iyo Sporting Gijón si ay soo gaadho finalka koobka kooxda koowaad ee Real Madrid ayaa 6 kaga adkaatay Castilla si ay ugu guuleystaan koobka dhamaadkii sanadkaasi Real waxaa loo magacaabay kooxda Yurub ee sanadka 1980 guddiga dooratay waxay tixgeliyeen inay sanadkani ku guuleysteen 2 koob oo dalkooda ah kuwaas oo kala ah horyaalka iyo Copa del Rey iyo waliba iyagoo gaadhay semifinalka European Cup-ka kasoo guulaha ay sanadkaasi gaadhay Real waxay xil ciyaareedkii xigay ku dhamaysatay natiijooyin aan fiicnayn 26 Abriil 1981 waxay waayeen horyaalkii markaas oo heesaha guushu ay ka qaadayeen taageerayaasha Real Madrid magaalada Valladolid kadib markii ay 2-1 ku wateen kooxda Real Valladolid ayaa waxaa daqiiqadii ugu dambeysay gool barbar ah dhalisay kooxda Real Sociedad oo tartan kula jirtay kooxda Real iyadoo ciyaarta ay la lahayd Sporting Gijón ka dhigtay 2-2 si ay ugu guuleystaan horyaalka balse haddii aad u eegtid kala sareynta horyaalka ee xil ciyaareedkaasi waxaad arkaysaa inay labada kooxood isku dhibco ahaayeen oo waliba Madrid ay ku sareysay dhanka farqiga goolasha laakiin sababta ay ugu guuleysatay Sociedad horyaalka ayaa ah in sharciga La Liga uu dhigayo haddii labada kooxood isku dhibco noqdaan in marka ugu horeysa lagu kala saaro tii ku gacan sareysay labadii kulan ee is arkeen hal bil kadib 27 May ee sanadkaasi Real ayaa finalka European Cup-ka lagaga adkaaday kadib markii hal gool uu dhaliyay Alan Kennedy oo Liverpool u hadiyay koobkoodii afraad ciyaartii finalka ee koobka adduunka ee sanadkii 1982 ayaa ka dhacday garoonka Santiago Bernabeu ciyaartan oo aad u xamaasad badnayd ayaa xulka Talyaanigu 3-1 ku garaacay Jarmalka galbeed waxa ugu weyn ee ciyaartan lagu xasuustaana waxay ahayd sidii farxaddu uga tanbadanaysay madaxweynaha Talyaaniga ee xilligaasi Sandro Bertini markasta oo xulkiisu gool dhaliyo maadaama ay soo doorashadii madaxweynenimada ee kooxda Luis de Carlos oo mar labaad sharaxnaa wuxuu 19 May 1982 Alfredo Di Stefano u magacaabay tababaraha kooxda koowaad sidoo kale wuxuu tababaraha kooxda labaad ee Real Madrid Castilla u magacaabay Amancio Amaro Di Stefano oo caan ku ahaa magaca The Arrow oo macnaheedu noqonayo Fallaadhi waxa uu Real ka tagay sanadkii 1964 isagoo ciyaaryahan ah isagoona hadda ku soo noqday isagoo tababaro ah Carlos ayaa mar labaad ku guuleystay madaxtinimada kooxda isagoo markan ka adkaaday Ramon Mendoza oo tartan kula jiray Di Stefano oo saxeexay heshiis 2 sano ah wuxuu xil ciyaareedkiisii koowaad ku guuleystay 5 koob oo yaryar markii xilli ciyaareedkii 1983-84 dhamaaday Di Stefano ayaa ka tagay kooxda heshiiskiisa ayaana ku ekaa 30 June 1984 Di Carlos ayaana go'aansaday inaanu u cusboonaysiin heshiiska sababtoo ah inuu ku guul daraystay inuu guulo waaweyn kooxda ku hogaamiyo 12 Disembar ee sanadkaasi Emilio Butragueno ayaa noqday xidig Yurub oo dhan laga yaqaano kadib bandhigiisii lama ilaawaanka ahaa ee ciyaartii Anderlecht ee ka tirsanad European Cup lugtii hore kooxda Belgiumka ayaa ku soo adkaatay 3 gool iyo waxba balse lugtii labaad ee ka dhacay garoonka Santiago Real ayaa ku adkaatay 6 gool iyo 1
oo 3 ka mid ah uu dhaliyay Botragueno iyadoo ay 3 kalena kala dhaliyeen Valdano oo 2 dhaliyay iyo Hugo Sanchez oo mid dhaliyay. Real ayaa markeedii ugu horeysay ku guuleystay UEFA Cup waliba 2 jeer oo isku xiga ka hore oo ahaa sanadkii 1985 waxaa isku dar labada lugoodba kaga adkaatay kooxda reer Hungary ee Videoton 3 gool iyo waxba. kan labaadna waxay kaga adkaatay kooxda FC Cologne isku dar 5 iyo 3 sanadkii xigay. sanadkii 1985 Di Carlos ayaa go'aansaday inaanu isu soo sharaxin mar saddexaad. markan waxaa doorashada ku guuleystay Ramon Mendoza oo 2 jeer soo noqday agaasimaha kooxda marna looga adkaaday madaxtinimada. xilligan waxaa soo baxay ciyaartoy 5 ah oo ka soo baxay akaadamiyada kooxda kuwaas oo saxafiga reer Faransiis Julio Cesar u bixiyay magaca La Quinta del Buitre oo macnaheedu noqonayo jiilkii Falcher. magaca Falcher ayaana ahaa naanaysta xidigii aynu hore u soo sheegnay ee Emilio Botragueno. 4 kale ayaana kala ahaa Manolo Sanchez, Martin Velasquez, Michel iyo Miguel Bardesa. Sanchez iyo Vasquez ayaa ahaa kuwii ugu horeeyay 5 ee u safta kooxda koowaad December 3 sanadkii 1983. dhowr bilood kadib Botragueno ayaa isna saftay ciyaartiisii ugu horeysay halka Bardesa isla xilli ciyaareedkaas gudihiisa noqday ciyaaryahan ka tirsan kooxda koowaad. Michel ayaa isagu ahaa kii ugu dambeeyay oo isna boos ka helay kooxda koowaad xilli ciyaareedkii xigay bilowgiisii. kadib ka tagitaankii Bardes kooxda ka tagay isagoona ku biiray kooxda Saragossa sanadkii 1986. La Quinta oo hadda 4 kaliya ah waxay kooxda ka dhigeen mid ka mid ah kooxaha ugu fiican Yurub qaybtii dambe ee 80-aadkii iyagoona ku guuleystay 2 UEFA Cup iyo 5 horyaal oo xidhiidh ah. rikoorkan waxa kaliya oo hoos u dhigay ku guuldareysigoodii ay ku guuldareysteen inay qaadaan European Cup iyo weliba ku guuldareysigoodii inay ka adkaadaan kooxda AC Milan oo xilligaas aad uga heer sareysay. wixii ka dambeeyay sanadkii 1990 La Quinta way burburtay. Martin Velasquez waxa uu ku biiray kooxda Torino sanadkii 1990 dib ayaana ugu soo laabtay sanadkii 1992 isagoona ugu dambeyn kooxda ka tagay isagoo ku biiray kooxda Deportivo La Coruna sanadkii 1995. Botragueno ayaa isna kooxda ka tagay isla sanadkaasi halka Michel uu isna ka tagay 96 iyadoo labadan dambaba ay ku biireen kooxda reer Mexico ee Atletico Calaya. Sanchez ayaa noqday xidiga kaliya ee ka tirsan La Quinta kaasoo waayihiisa oo dhan u ciyaaray kooxda Madrid isagoona Champions League kula guuleystay 2 jeer sanadihii 1998 iyo 2000 tanoo ka dhigtay inuu qaaday waxay ku guuldareysteen inay gaadhaan isaga iyo jiilkiisii La Quinta xilligoodii dahabiga ahaa. wuxuu fadhiistay sanadkii 2001 isagoona jiray 37 sano wuxuuna ahaa kii ugu dambeeyay ee La Quinta ah ee fadhiista. sanadkii 1996 madaxweynaha cusub ee kooxda Lorenzo Sanis ayaa tababaraha kooxda u magacaabay Fabio Capello. inkasta uu hal xilli ciyaareed joogay kooxda haddana wuxuu kooxda ku hogaamiyay horyaalka. sidoo kale waxa uu kooxda ku soo daray ciyaaryahano tayo leh sida Mijatovic, Davor Suker, Clarence Seedorf, Roberto Carlos iyo goolhaye Bodo Ilger si ay xoojiyaan koox ay hore u sii joogeen Raúl González, Fernando Hierro iyo Fernando Redondo. natiijo ahaan Real waxay 2 sano kadib ku guuleysatay inay soo afjarto abaarta 32 jirsatay ee European Cup-ka iyagoona uu tababaraya Job Heynckes. waxay sanadkii 1998 hal yeebar kaga adkaadeen kooxda Juventus gool u dhaliyay Mijatovic si ay ugu guuleystaan koobka hadda magaciisa loo bedelay UEFA Champions League. bishii November sanadkii 1999 Vicente Del Bosque ayaa la wareegay tababarida kooxda. Del Bosque waxa uu kooxda ku soo daray ciyaartoy yaryar oo cusub sida Fernando Morientes, Guti iyo Iker Casillas. sidoo kalena wuxuu Premier League Ingiriiska ka keenay Steve McManaman iyo Nicolas Anelka. dhamaadkii ciyaareedkiisii ugu horeeyay ee 99-2000 Real waxay ku guuleysatay UEFA Champions League markoodii 8aad kadib markii ay 3 yeebar kaga adkaadeen kooxda Valencia iyagoona goolasha ay kala dhaliyeen Morientes, McManaman iyo Raúl. guushan waxay kooxda u bilowday xilli ka mid ah kuwii ugu fiicnaa ee xilliyadan casriga ah. bishii July sanadkii 2000 waxaa madaxweynaha kooxda loo doortay Florentino Perez wuxuuna ballan qaaday intuu ololihiisa ku jiray inuu bixin doono deynta 270 milyan ee euro gaadhaysay ee lagu lahaa kooxda. wuxuu sidoo kale ballan qaaday inuu casriyeyn doono dhismayaasha iyo garoomada kooxdu leedahay. hase yeeshee ballanqaadkii ugu weynaa ee inuu guuleysto keenay wuxuu ahaa kala soo saxeexashada Luis Figo kooxda ay xafiltamaan ee Barcelona. sanadkii xigay wuxuu ballaariyay garoonka tababarka kooxda wuxuuna bilaabay inuu la soo saxeexdo xidigo waaweyn. xilligan ayaana loo yaqaanaa The Galacticos Era oo macnaheedu noqonayo Superstars ama xidigo reer caadiya. xidigahan waxaa ka mid ahaa Zinedine Zidane, Ronaldinho Brazil, Luis Figo, David Beckham iyo Fabio Cannavaro.
waxaana arrin lagu murmo noqotay in Perez khamaarkiisii uu shaqeeyay iyo in kale. Madrid waxay ku guuleysatay UEFA Champions League iyo Intercontinental Cup sanadkii 2002 iyo weliba La Liga sanadkii 2003. waxaase xigay 3 xilli ciyaareed oo aanay koob weyn ku guuleysan. 27 Juun 2006 Perez ayaa ku dhawaaqay iscasilidiisa kadib markii 4 sano oo xidhiidha laga reebay Champions League. 2 Juulaay ee sanadkaasi waxaa doorashadii madaxtinimada kooxda ku guuleystay Ramon Calderón, wuxuuna isan tababaraha kooxda u magacaabay Fabio Capello. wuxuu sidoo kale agaasimaha sportiga u magacaabay Mijatovic oo kooxda hore uga soo noqday ciyaartoy. xilli ciyaareedka 2006-2007 dhammaadkiisii Real waxay ku guuleystay horyaalka markii ugu horeysay tan iyo 2003. si kastaba ha ahaatee Capello ayaa dhammaadka xilli ciyaareedka shaqadii laga eriyay, balse madaxweynahani wuxuu ku guuldaraystay inuu wax guul ah ka gaaro Champions League, iyagoona Real 3 sano ee uu madaxweyne ahaa lagu reebay wareegga 16. sanadkii 2009 waxaa madaxnimada kooxda dib ugu guuleystay Florentino Perez oo ilaa hadda isagu xilkaasi haya. Perez waxa uu dib u bilaabay qorshihiisii hore ee The Galacticos, kaasoo ku salaysnaa soo saxiixashada ciyaaryahano waaweyn oo caan ah, wuxuuna isla markiiba kooxda keenay Cristiano Ronaldo iyo Ricardo Kaka oo labaduba Ballon d'Or kusoo kala guuleystay sanadihii 2007 iyo 2008. sanadkii 2010 wuxuu tababaraha kooxda u magacaabay Jose Mourinho oo isagu 3 koob ah la soo qaaday kooxda Inter Milan loona magacaabay tababaraha sanadka. inkastoo aanu Mourinho kooxda u qaadin koobka kooxaha Yurub, haddana wuxuu kooxda ku soo celiyay wadadii guusha, isagoona 3 sano ee uu tababaraha ahaa gaarsiiyay 3 semifinal oo Champions League. wuxuu sidoo kale u qaaday koobka La Liga sanadkii 2012. sanadkii 2014 kooxda ayaa ku guuleysatay La Decima oo macnaheedu yahay tii 10aad oo loola jeedo Champions League-goodii 10aad, iyadoo uu ku hogaamiyay tababaraha reer Talyaani ee Carlo Ancelotti. 4 sano ee xigtay Zinedine Zidane ayaa kooxda ku hogaamiyay 3 Champions League oo xidhiidha sanadihii 2016, 17 iyo 18. Real Madrid ayaa sanadkii 2017 noqotay kooxdii ugu horeysay ee difaacata koobkan tan iyo markii loo bixiyay magaca UEFA Champions League. Zinedine Zidane wuxuu sidoo kale kooxda ku hogaamiyay horyaalka isla sanadkaasi. Cristiano Ronaldo iyo Zinedine Zidane ayaa labadooduba kooxda ka tagay sanadkii 2018. tani waxay sababtay in kooxda bandhigeedii xumaado. Real ayaana xilli ciyaareedkii la soo dhaafay ee 2018-2019 ku guuleysan wax koob ah marka laga reebo koobka Club World Cup, balse Zinedine Zidane ayaa kooxda dib ugu soo laabtay 11 March sanadkii 2019. Zidane ayaana ku rajo weyn inuu dib ugu celiyo kooxda xilligiisii koowaad ee dahabiga ahaa ee uu la soo qaatay. waad mahadsantahay daawade. haddii uu ku cajab geliyay muuqaalkan, fadlan like saar lana wadaag asxaabtaada. hana hilmaamin inaad subscribe saartid channelka adoo daaraya gambaleelka digniinta.